garatay waxaan ku sheegayaa macna iimaan la'aanta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وعباس سعيد شامع عباس جولدن قلب وناكسين دمان أصحاب تميل والبقات شوكتان وبرنامج كيني كفتن كاردالين تقيبتي سلابات ومان تاي نوقع عزوميهين laba wiil oo u leh hibo in ay midna u bedelo codadka filmaanta lagu soo turjumo ama uu koobiyeen karo isla markaana sida loo dhigo uu dhigi karo waa Suhayb Fariyon oo ah cod bedelaha ama cod koobiyeeye isla markaana codka uu markaa uu maqlo awood u leeyahay inuu koobiyeeyo waana nin keeni kara meesheeda dhigi kara qaabka ay u soo turjumaan filmaanta kuwa Soomaalida ahi isla markaana uu awood u leeyahay in qaabka filmaanta loo turjumayo isna uu u hadlo iyo Yaasiin oo ku magac dheer aabaha jacaylka father of love isna waxa awood u leeyahay runtii in uu qof xareysan ama ooyay uu ka qosliyo isla markaana uu u soo celiyo farxadiisa haddaan ku bilaabo Suhayb ku soo dhawow dad badan baa ku daawanaya waxaan jeclaan lahayn inaad dhowr wax ka hadashid qaar aad kaga qoslisid qaar aad u soo bandhigtid qaar aad tustid wacdaro kala duwan isla markaana aad qancisid bulshada ku daawanaysa ku soo dhawow ariga hortooda aad iyo aad aan u dhawaayay laakiin samaga horta barnaamijka waad igu kaysay degdegaad iga dhigtay inaan ku kasbayaan ka boqoya hadda aan ku daf ku dhaho magast muga aad aan u dhawaay asxaabtiidana waa salaamaya meel kasta joogta waan salaamantiin markii la sheekaysanaya aad iyo aad baan u qoslaa isla markaana waxaan idigu soo bandhigay videogan inuu idinkana bal idin la wadaago waxyaabaha aniga iga qosliyo Yaasiin what about you saaxiib horta oo u mahadsantahay aad iyo aad Cabbaas Golden ma garatay oo ugu dhawahay barnaamijkan ma sha Allah si wacan aad soo dhaweysay aniga saaxiibkayga Suhayb mahadsanid Yaasiin adiga hal su'aal baan ku weydiinayaa waxaad nooga sheekaysaa maalintii kugu la yaabka badneed maadaama nin ibada ku noolaan jiray wadanka Yemen nin cilmiga badda aad u yaqaan oo shaqadiisu halka ahayd maalinkii kugu la yaabka badneed inaad bal noo sheegtid oo aad u soo bandhigtid bulshada ku daawanaysa welcome mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay Cabbaas ma sha Allah horta maalintii ugu la yaabka badneed waxay ahayd maalinta aan badda kor saaran maalin waxa jirtay maalin aan badda saaranahay saddex qof aan ahayn dooniyahana waad ogtahay u malinay ama filmaantu waad ka daawatay hadii la tagayo oo la shaqo tagayo saddex qof in lagu baxo marka saddexda qof anagu waa maalmaha kamid ah raashinkii naga go'ay badda anagoo saaran raashinkii markaan cunaynay waan karsanay maalinba mid kariya maalintii ee aniga igu soo aaday karaskan karinayay maalintii la kariyay laba dooniyoodan ahaan doonti kale kuwii kala weeracaan ana doonti kale liiga tagay moogtaa ana raashinka karinay inta maqnaayeen si qaday ma garatay waxaan ku sheegayaa macna iimaan la'aanta iimaan la'aanta inay faa'iido lahayn waan ku sheegayaa way baxan marka baxan saaxiibo way soo noqdeen waa si qaday aniga inta si maqnaayeen caloosha si kiile waxaan shir raashinka kana ugu dambeeyay wax kale lama haye birina waxa soo galay macnaha rabadaanta soo galay وقرد ماشي وبد انت بدل ما تعالى يس waxaan sir marka caloosha siikil inta saa firgata وقرد marka saasu ahaan way yimaadeen waan la sii qadiyay qadada marka afka saa ugu qaadaan galaas caana dalaqsi ama sida ay u taqaanaan caanaha baakadaha ku jira aan dalaqsi maraaciga حاجة مراعي ميال الهنا اللي يرادا حليب كيمن الهنا اللي يرادا عافمت كعب ما قرتين نينك حاجة تجنا هلي ماذا معناه الهنا قدر جدا رفعت كامر إنه مرة يهرت مركا هذين شيء يهرت سا معناها ماشي وتاجنين راشين كيعنا مركا باكد عنا كده بقي علوش حقنا اللي كانت دبر معناها هذه شيء إيمان أنت إن فايدة لهن وادبر أشهد أنكر أشهد أن لا إله إلا الله ويجي فرقتي waxa iga gaartay heeraan iraaday ilaahu macnaha dibradayga qaad mar dambe ay isma darjinay marka dhalinyarada waxaan ku waan gelinayaa ma garatay inay saxaasidnimo wax u cunin rabadaan uu soo socdaa ma garateen marka hasidina macnaha rabadaan waa kan
calooshu usii buuxiya waxaas yaa lisdhihin anaa micnaha rafaad soo arkay hadda ka hor oo garatay caloosha liiga kormariyey marka Cabaas Golden waa ku mahadsantahay barnaamijkan nagu soo dhaweeyay ninkii maalaan wax u cunaa saas la kulmay ilaa garan email la Suhayb Fariyon adiga markaa ku soo gaadhay kulba category ku doori maayay ku soo dhaw maan ku leeyahay dii horta ninkan ma garanaysa iimaanka baalay laba jeer baa qoday kadibna caloosha baa xanuuntay laakiin anina saas meehi horta koodhadii maalintii igu xameed qabar baa jeclaaday gabartaas sidee cadab oo jeclaanay qalbiga baa naga degtay meel kasta qacanteena hadii fiirsanay ma ogsootay iyada baa arkayna cunto hadii cunayna ma kasi iyada baa fikir arkayna qoftaas sidee cad baa oo jeclaanay maalintii daba qoftii afarkitay habarteeda xanuunsatay si ilmeynaysa farkita qoftii anu waxa suubina markaas 10 saac laba habeen 5 maalmood laba isbuuc 3 sano oo yahay qof intaas dhan oo yahay ma jiro marka maalintaas ay igu xameedana Suhayb haddaan su'aal ku weydiiyo imisa cod ayaad inaad bedesho awood u leedahay ama imisa qof oo aynu naqaano inay filmaantii noo soo turjumaan ay codkooda koobiyeen kartaa ayood samayn kartaan adoo waliba noo si kala raacinaya mid kasta tusaalihiisa ama mid kasta noo soo deynaya qaabka aad iskugu daydid inaad bedeshid ama aad u koobiyeysid horta codadka qayb waxaa jirta caqabado kugu xidhaya qayb waxaa jirta mar waxaad samayn kartaa xilli qaasa mar uu qof yaqaano kula joogo kuwa waxaa jirta aad dareen ku samayn kartid baa jirta laakiin se anu badanka laba cod baan u jeclahay waa codka Aafo ama Axmed Saadiq iyo Cako iyo Janjum codkiisa labada codna waan kugu hadlay iminka ma fahantay wallahi waa la yaab qof dhalinyaro ah yara Soomaaliyeed ah awoodna u leh wax kasta oo uu dhageysto ama uu maqlo inuu koobiyeeyo isla sida markaa uu maqlayna oo uu soo daayo runtii waan ku faraxsanahay inaad ka mid noqoto dhalinyarada reer Sool ama magaalada Laascaano degan isla markaana leh awoodo bulshada ay kaga soo dhex muuqdaan oo markaa ay yani awood u leeyihiin wax kasta oo ay maqlaan in ay koobiyayaan for example labada nin waa laba nin oo labadaba markaan la sheekeysanayo runtii aan aad u qoslo sida darteed waxaan isku dayay inaan bal clip yar idiga soo qabto maxaan ku sheegay aan idii soo daayo isla markaana aad ka faa'iideysataan kana barataan dadka si aad biri kamaal marka aad u aragtaan aad xasuusataan kani waa qaybtii labaad ee barnaamijkeennii kaftanka dhalinta ee aan qaybtiisa koobaad idii soo daynay barnaamijka waan gabagabeynaa wax comedy ah oo ku soo gabagabeynaysa ma jiraan Suhayb dii caloosha baan horinaysaa asxaabtadii waa islaamina anaka mid ka daalina maqsoontiin inaan la joogtaan baa jeclaa laakiin waqtiga baa yeelindii waxaan filayaa asxaabteeda qaaliga ee qiimaha badan ee daawanaysa fiidiyowgaygan in ay insha Allah ku qosli doonto markay labada nin hadalkooda dhageystaan inta waxaynu weeg barnaamijkeennii insha Allah taala inta qayb saddexaad aan iiga soo habeenano idiga soo diyaarinano idiga soo deynano waxaan idiga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh